aan is aragnay ayadoo xaamil ah oo dhalma ah hadda daraad umul way la dhahay waa wala yaabanay waqtigaas ay dhalma ahayd wax badan waxaad maqashay dood loo maxkamadeynayo musuqmaasuq dacwado dhul la xiriira ama dambiyada kale sida caadiga ah aadanaha uga dhaca laakiin tani way ka duwan tahay waa dacwad anshax ah oo uma baahin doono muuqaalada qaarkoodna waxaan qarin doonaa wejiyadooda mana sheegi doono magacyadooda saxda ah dadka dhibanayaasha ka ah dacwadani Shoble waa 52 jir waxaa gacanta ku soo dhigay ciidanka booliska Soomaaliyeed asagoo gacanta kula jira ficil faaxisho ah iyo gogol dhaaf bilowgii sanadkan baaris uu sameeyay xafiiska xeerarka guud ee qaranka ayaa lagu ogaaday inay jiraan haween Soomaaliyeed oo dhibanayaal u ah ninkani kuwaas oo uu kula kacay falal la xiriira kufsi turuufo iyo sidoo kale duubis muuqaalo anshaxumo ah asagoo adeegsanaya teleefanada casriga ah waxaana dhibanayaasha qaarkood uu ku sameeyay sixir sida lagu sheegay baarista xafiiska xeerarka guud ee qaranka waxay sheegtay falka ku dhacay waxa lagu sameeyay iyo sida ay u dhaceen maxkamadda intaba way u xaqiijisay mudane gudoomiye waxaan macquul ahayn oo aqli gal ahayn xaas la qabo caruur leh guri zawj ka soo toosaysa inay u bareerto inay macsi samayso haddana video inta laga duubo ay ogolaato kii la wareysanayay waxay sheegtay in markii ugu horeysay lagu shubay biyahaas kadib markii lagu shubayna ogaalkeedii uu meeshaas ku tagay sida muuqatana wax kasta oo lagu sameynayay iyo tilaabo kasta oo la qaadayayna iyadu ayna wax ay awood u leedahay oo awoodeeda ayna ahayn wax awoodeeda ka baxsan lagu sameeyay in badan waxa laga yaabaa inay isweydiinaysan halka uu ka keenay ama uu ka tixraaco dadka uu dhibaatooyinka u geysanaya ninkani qaarkood waxa uu teleefanadooda ka helay baraha bulshada gaar ahaan Facebooka muuqaalada la soo dhigay la sheegay in lagu caawinayo dadka ama dadku ay ku codsanayaan caawinaada waxa sidoo kale dhibanayaashu ka raacay gaadiidka dadweynaha ay isticmaalaan isla markaana gabdhaha qaarkood uu la raacay gaadiidkaasi kadibna halkaas uu kala degay markii uu ku sameeyay waxyaabaha ugu yeeray sixirka marka degaysan ma dad isla socda ahaana u degteen oo baabuurka dhaxiisa ku wada hadasheen mudane xeer ilaaliye ani ayda baabuurka mana iskula hadleen mana iskugu gacan qaadin sida ay daraad ay ka sheegaysay ma jirto markaan degnayo baabuurkaas aan ka degnayo lugaha marshabiyeedka aan saarnay markaas hadal bilaabtay ilaahay subxaanahu wa ta'aala idaalacana ya bilaab maxaad aniga nafs ahaantayda bilaabay maxaad ku xanaaqsaneed baabuurka dhaxdaysa dumarka inay ku hadlaan waa laaga qurux markii Facebook saas aad u gashid ama khad saas aad u gashid haday qofka maskiinnimo ay kala muuqato inaad caawisid haqaad u leedahay gabadhan markay saan ay dhahay aabahayga intaas uu iga maqan yahay aniga gabar saas ahaan ahay ay dhahayso saas ahaanan u gal xumaatana ma u galin qof mustazabaj inay tahay waa dareensanay muxuu ka raadsanay dadkaas waalidkood maqan yihiin muxuu ka raadsanay muxuu sameeyaa wuxuu raadsaday dadka taagta daran ee masaakiinta ah markaasuu mid kasta intuu dhabarka ka taabtay haddana gudoomiye anshaxumada iyo fadeexada taalatan ugu dara waxay tahay naagaan la qabin ma raadsanba video laga tuubi kuba darad aan arkayno anaga meeshaas aan ku arkayno macal cudkaaga saaran haddaba liidhahay way mudane gudoomiye marka uu jira ma video yaashaas waa jiraan tii daradna aan arkayno haddana mudane xeer ilaaliyadayda ay ka hadlaysay waa codka saaran adiga miya codka saaran codkaygo la saaray waa la koobiyay intaas xuriyadiisa mobilkayga maqnay tan aan hadda ku amdacooyay way mudane gudoomiye qareenka difaaceeda sanaha ayaa dhankiisa waxa uu qabaa dood ka duwan midda xeer ilaalinta ay ku soo bandhigeen fadhiga maxkamadda mudane gudoomiye garsoorayaal ma jirto wax tusinaya eedaysanuhu inuu geystay sheegasho lagu sheegayo inuu tacaddi sameeyay wax ka baxsan nabigu wuxuu yiri nahnu nahkum bi dawahiri wallahu ya'lamu saraira wixii xaqiiqa ilaaha ka sayay laakiin daahirka eedaysanuhu xeerali ku xigeen xiis ayaa waxa ay maxkamadda ka codsatay gabagabadii dacwadda in eedeysanaha lagu ciqaabo falalka foosho xun uu geystay dhibanayaashani mudane gudoomiye mudane garsoore
cadeymanka aan soo gudbino waxaa ka mid ah eedaysanaha maxkamadda hortaagan iyo eedda waxaa isku xiraayo lambarada uu maxkamadda ka hor sheegtay ayaa lagu gudbiyey dhammaan fiidiyowada dukumentigeedana waa soo gudbinay lambarada uu asaga leeyahay ayaa laga diray fiidiyowada taariikhda laga diray iyo waqtigan la isku fiiriyo maxkamadda gobolka Banaadir ayaa dacwadda eedeysanahan ka yeelatay ilaa 3 fadhi oo kala duwan waxaana la horgeeyay dhibanayaasha marqaatiyaal ay ka mid yihiin ehelada dhibanayaasha qaar ka mid ah dhibanayaashii uu dhibka u geystay iyada oo xafiiska xeeladaha guud ee qarankana uu ku soo bandhigay dacwadda inta ay socotay cadeymo ku filan dacwadda lagu soo oogay eedeysanahani gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir garsoore Saalax Cali Maxamuud Dabaan oo garsooraha dacwadda ahaa ayaa gabagabada dacwaddan oo qaadatay waqti dheer si cadaalad loogu helo dhibanayaasha isla markaana loo ilaaliyo xuquuqda eedeysanaha ayaa ugu dambeyn waxa uu soo saaray xukun 3 qodob oo kamid ah waxa lagu helay inuu geystay dambiyadii lagu soo eedeeyay waxaana lagu xukumay 7 sano waxa sidoo kale lagu xukumay 2 sano iyo sidoo kale 1 sano ayadoo wadarta guud ee tirada lagu xukumay eedeysanahan ay noqotay 10 sano oo xabsi ah xukunka maxkamadda gobolka Banaadir qaybteeda ciqaabtu waxay eedeysanay Abuukar Maxamed Xasan Shooble ku heshay qodobka 398 faqradiisa labaad waxayna uga xukuntay 7 sano oo xariga labo maxkamaddu waxay eedeysanaha sare ku xusan ku heshay qodobka 403 faqradiisa koobaad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxayna ku xukuntay 2 sano uga xukuntay 2 sano oo xariga sidoo kale waxay maxkamaddu ku heshay eedeysanaha sare ku xusan qodobka 496 faqradiisa koobaad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxayna uga xukuntay 1 sano oo xariga wadarta guud ee xabsiga laga xukumay eedeysanaha Abuukar Maxamed Xasan Shooble waa 10 sano oo xariga sidoo kale maxkamaddu waxay ku weysay eedda ku xusan ama faldambiyeedka ku xusan qodobka 402 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed xukunkan cid aan ku qancin waxa ka furan afaan ku samaynta sharcigu tilmaamay Cabdullaahi Maxamuud Amiin Cabdullaahi Qorshe xarunta maxkamadda gobolka Banaadir Muqdisho